bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqon doona diyaarinta xildhibaanada taageersan farmaajo oo laga bilaabay villa Soomaaliya rooble oo ku fashilmay inuu hor istaago magacaabista Cabdiraxmaan Dheere Hirshabeelle oo markan guux cusub oo siyaasadeed ka bilowday madaxweyne Dani oo kala cadeeyay inuu iska casilayo xilka madaxweynaha Puntland iyo in kale taliye tareedisho oo ka hor yimid in xilka laga qaado kana hadlay ujeedka laga leeyahay iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda deegaanada Hirshabeelle iyo Jubbaland ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya diyaarinta xildhibaanada taageersan farmaajo ayaa laga bilaabay villa Soomaaliya xildhibaanada taageersan madaxweynaha mudxuleedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu soo waramayaa in habeen waliba ay isku xaadiriyaan villa Soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta xildhibaanada oo badan kuwa dhinaca nabad sugidda ka soo galay iyo qaar kale oo tiradooda badan ayaa laga hadlayaa in ay diyaariyaan qaabkii ugu shaqeyn lahaayeen in ay dib u soo doorashada madaxweynaha Farmaajo ayna ka shaqeeyaan soo xirigelinta xildhibaanada kale ee banaanka ka taagan siyaasadda villa Soomaaliya Farmaajo ayaa niyad xumi ka muujiyay 16 kursi ee taala Garbahare isagoona ka soo qaaday kuwa aan lagu tashan doonin maadaama ay waqtay in Axmed Madoobe oo kaga guuleystay soo xulista 16 kursi oo la filanayo in lagu doorto ceel waaqa taasina waxay u muuqatay in niyad jab ay xoogan uu ka muujinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka lahaa inuu 16 kursi gacantiisa ay soo gasho si kastaba waxa uusan ku tashan doonin xildhibaanada laga soo doorto Puntland iyo Jubbaland oo dhammaantoodba loo hubo in aysan codsiin doonin Farmaajo loona badinayo dhanka siciidan villa Soomaaliya ayaa toos ugu gashay ololaha dib u doorashada Farmaajo waxaana u muuqataa in kooxda ugu lacagta iyo dhaqaalaha badan ay ka qayb galayso doorashada 2022 si kastaba waxaa dhici karta markii la tago hoolka doorashada in ay wax walba isbedelaan sidii hore u dhacdaba doorashadii 8 Febraayo 2017 mudanayaashuna baarlamaanka la gediyay Xasan Sheekh Maxamuud codka uu ku tashanayana waayay taasi oo noqotay mid saameyn kala yeelata hasaatee kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa taasi si weyn uga hortagaysa dhanka kalena daawadayaal rooble ayaa ku fashilmay inuu hor istaag uu ku sameeyo magacaabista Cabdiraxmaan Dheere waxaa la filanayaa in toddobaadkan dhexdiisa lagu dhawaaqo agaasimaha cusub ee hay'adda NISA ee bedeli doono Yaasiin Fare oo xilka u hayay si ku meel gaar ah dhowr bilood agaasimaha cusub ee NISA ee madaxweynaha xafiiskii sii jooga ee Farmaajo iyo Fahad ay soo xusheen ayaa lagu magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo garabka midig ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku gacan saaray xubnaha loo diray in la ogoleysiiyo in uu aqbalo magacaabista Cabdiraxmaan Dheere waxaana la sheegayaa in Rooble uu iskaday heshiiskii hore ee u gaareen isaga iyo Farmaajo in ay ka dhigaan in madaxweynaha uu soo magacaabo qof leysla ogol yahay si kastaba waxa ay wararku ay sheegayaan in khilaaf kale uu mar kale uu keenayo iyadoona laga yaabo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu qof kale uu magacaabo si kastaba warbaahinta ayaa waxa ay si weyn u hadlaysaa sida Cabdiraxmaan Dheere uu ku soo magacaabayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hasaatee haddii Farmaajo uu magacaabo saacadaha soo socda Cabdiraxmaan Dheere waxay ka dhignaan doontaa tijaabo kale oo looga guuleystay Rooble markii hore looga adkaaday in meesha laga saaro agaasimihii hore u magacaabay ee Bashiir Goobe xubno isugu jira xildhibaano siyaasiyiin iyo dalaaliin siyaasadeed ayaa saacadihii u dambeeyay ka mari dhalin waayay ogolaanshaha in laga helo ra'iisul wasaare Rooble taasi oo soo dedejisay in Farmaajo iyo Fahad ay ku adkeystaan magacaabista Cabdiraxmaan Dheere arrintan ayaa la filanayaa in khilaaf culus ay dhaliso balse iyadoo oo la filanayay in madaxweynaha cusub oo la doorto 2 bil gudahooda waxaa suurtagal ah in ra'iisul wasaare Rooble oo iska sabro taasina waxay ka dhigan tahay in culayska siyaasadeed ee haata villa Soomaaliya ka soo cusboonaaday uu yahay mid kale oo wajiye kale cusub dhalinaya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble khilaafkooda ayaa waxa uu yahay mid aad u sii adkaanayo dhanka kalena madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani ayaa kala cadeeyay in uu iscasilayo in kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan shaaciyay inuu yahay musharaxa u taagan xilka ugu sareeya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ka warbixiyay in uu
iscasilayay iyo in kale. Madaxweyne Dani ayaa kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ee dhowaan laga soo doortay maamulkaasi, isagoona si cad u sheegay inuu iska casili doonin xilka madaxweynaha Puntland. Waxa uu xildhibaanada u sheegay inuu haddii uu ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliya uu markaasi iska casili doono Puntland, hase yeeshee haddii uu waayo uu halkiisa kasii wadan doono shaqada maamulka oo ku soo laaban doono. Arrintaani ayaa meesha ka saareysa hadalhayn badan oo dhalisay musharaxnimada Dani, si gaar ahna ula xiriirtay waxa uu ka yeeli doono xilka madaxweynaha Puntland uu hadda hayo. Musharax Dani ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta loolanka adag la galaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu rajadiisa ugu weyn u yahay inuu gebi ahaanba uu meesha ka saaro kooxda madaxweyne Farmaajo. Si kastaba Dani ayaa ka go-an tahay inuu isbedel uu ka dhaco dalka, islamarkaana guusha laga wareejiyo Farmaajo, isagoo laftiisa dadaal badan ku bixinaya dib u soo laabashadiisa. Waxaana madaxweynaha maamulka Puntland uu ka mid yahay tiro siyaasiyiin ah oo eedeymo fara badan hore ugu jeedinaysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Dhanka kale, Tareedisho ayaa ka hor yimid xilka laga qaaday kana hadlay ujeedka laga leeyahay. Taliyaha qeybta 27aad ee Genaraal Axmed Maxamed Calasow Tareedisho oo la hadlay saraakiil ka tirsan ciidamada qeybta ayaa ka hadlay warar sheegaya in xilka qaadis lagu sameeyay. Genaraal Tareedisho oo kula hadlay gelinkii dambe ee shalayta magaalada Bulburte ciidamada ka tirsan qeybta 27aad ayaa sheegay inaysan jirin wax dukumiinti rasmi ah oo xilka looga qaadayo oo soo gaaray, balse ay jiraan warar suuqa la soo geliyay. Waxa uu Genaraal Tareedisho eedeeyay wararka suuqa la soo geliyay in ay ka dambeeyaan mucaaradka dowladda iyo xildhibaano xilkooda waayay, iyadoona doonaya inay awood qaybsiga Hirshabelle ay ku dabaraan. Waxa uu generaalka sheegay in ay jiraan dad doonaya inay burburiyaan qeybta 27aad oo ku tilmaamay inay tahay qeybta keliya ee ka howlgasho dalka, ayna leedahay talis iyo saraakiil iyo ciidamo kala dambeeya. Waxaana uu Genaraal Tareedisho uu sheegay in ayna taasi marnaba dhici doonin, cid kasta oo isku daydana inay carqaladeyso xilkiisana uu tallaabo uu ka qaadi doono. Genaraal Tareedisho ayaa waxa uu ka mid yahay saraakiisha ugu sarsareeya ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwooda ugu daacadsan in ay wax u qabtaan ciidanka xoogga dalka. Genaraal Tareedisho ayaa lagu tilmaamaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwooda ugu firfircoon, isagoona horey u ballan qaaday in uu si gaar ah ciidamada xoogga u garab istaagayo. Genaraal Tareedisho ayaana la tilmaamaa in uu ka mid yahay saraakiisha horey ugu guuleysatay abaalmarino kala duwan, iyadoona xilkan tan iyo markii loo magacaabay awoodda ciidamada qeybta 27aad wax badan uu ka bedelay. Ciidamada qeybta 27aad ayaa waxay dhammaantoodba ay si gooni ah u aaminsan yihiin Genaraal Tareedisho. Genaraal Axmed Maxamed Calasow Tareedisho ayaana waxaa inta badan oo si weyn ugu dadaala gebi ahaanba Hirshabelle iyo Hiiraan inaysan dhibaatayna ka dhicin, si weynna ula dagaalamo xarakada Al-Shabaab. Guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Runta Wararka saaxiibayaal waa naga intaa. Haddaba daawada, haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. Waad mahadsantihiin. Nabadgelyo.